بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسنا تفسير كعاوح وكب اللابانية سورة الليلة سورة إبراهيم وسورة طبعا أفراد سورة قرآن كريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را ألف كاي اللام كي الراء ذا سدح ذا حرف الله أعلم بمراده مراد كاللوغة يدو إلهي وانبا قرانية كتاب هذا متكان كتاب وي قرآن كاني كتاب كاسو أنزلناه أنه أنسود نبو إلهي يري إليك حقاق أيان أسود النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس ضدك إن أتكسارته من الظلمات مقديالك إلى النور كحقيس يا إفتينك يا خير كحقيس أدو صارته أو مدى جهلك يا قال يا بادد اللي قبحيه أو علمك يا إيمان كحقيس الله بحيان أسوى صارني بإذن ربهم rabbigooda idankiisana aad macnaha waxa weeye uga bixisabu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaa siraadi alcasiisi allaha casiiska ah waddadiisa xaggiisana aad u bixido allahaasu alxamiidi ay almaxmuudi ee la mahdiyo allaahi ilaahay alladii ilaahaasu lahu ay u sugnaatay maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqa ku sugan iyo wamaa fi lardi makhluuqa dhulka ku suganba waweylun halaag baa lilkaafiriina gaalada u sugnaaday min cadaabin cadaab xaggiiba uga sugnaaday cadaabkaasoo shadiidin aada u daran alladiina gaaladaasoo yastaxibbuuna alxayaata noloshii jeclaanayeen noloshii addunyaa ee dhoweed cala alaakhirati aakhirada ka jeclaanayeen wayasudduuna jeedinayeen dadka can sabiilillaahi waddada ilaahay ka duudayeen wayabquunahaa dalbayeen waddada ilaahay ciwajan qallooc waddada ilaahay iyo diinta ilaahay ummadda inay ka qalloociyaan bay doonayaan oo diinta ilaahay magaxxumo u raadiyaan ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi dhexdii bay ahaadeen dalaalkaasoo baciidin fog wamaa arsalnaa maanu dirin min rasuulin rasuul maanu dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa luqadiisan ku soo dirna buu ilaahay yidhi liyubayina inuu u caddeeyo ummaddan u soo dirna nabi walba lahum ayaga shareecada inuu u caddeeyo fa yudillullaahu ilaahay wou lumiyaa man yashaau qofkou doono wayahdii wou hanuuniyaa man yashaau qofkou doonana wuu hanuuniyaa wa huwa ilaahay alcasiizu waa mid xukunkiisa qaalib u ah alxakiimu ee xikmad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo fal suuban walaqad xaqiiqanimi arsalnaa waxaanu dirnay muusaa nabi muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennaan la dirnay waxaan nabiyullaahi muuse ku nidhi an akhrij qowmaka ay akhrij qowmaka qoomkaaga ka saar min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri nuurka xaggiisana u saar wadakirhum qoomkaaga ku waani oo xusuusi biayaami illaahi ilaahay nicmooyinkiisa inna fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan waanintaa nicmooyinka rabbi addoommada la xusuusiyo laayaatin calaamooyin awoodda rabbi lagu garanayo liqowmin bay ugu sugnaatay qoomka waxaan rabaa likulli sabbaarin ruux sabar badan dhammaantii bay ugu sugnaatay sabbaarkaasoo shakuurin shukri badan waid waqti ka sheekay qaala muusaa nabi muuse ou yidhi liqowmihi qoomkiisa wuxuu u yidhi udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa xasuusta calaykum dushiinna oo u nicmeeyey id waqti ou idiin nicmeeyey anjaakum ilaahay ou idin badbaadiyo idin samata bixiyey min aali fircawna fircoon ahaaladiisa ou idinka badbaadiyey yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiinayaan oo idinku mayracayaan oo idinku foofinayaan su'aal cadaabi cadaabta middeeda xun wayudabbixuuna waxay gowracayeen fircoon iyo dadka la jiraahi abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxay ka sariiganayeen oo ka tegayeen oo reebayeen nisaa'akum dumarkiinna
wa fii daalikum badbaadintaa dhibkaa laydinka badbaadiyey iyo halaagiddaa laydin halaagay waxaa ku sugan balaa-un bele layskugu nicmeeyey nicmo layskugu macnaha imtixaam iyo balaayo layskugu nicmeeyo dhinacna nicmaad ka hesheen dhinacna waxa weeye dhibaata idinka haysatay balahaasoo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahaatay rabbigaas balahaasoo cadiimin weyn waid waqti ka sheekay ta'adana ou idan weydiistay rabbukum ta'adana waxaan rabaa ou macnaha ogeysiiye wey idan weydiis maaha waid waqti ka sheekay ta'adana ou ogeysiiyey rabbukum rabbigiinu lain shakartum haddii aad shukrisaan la'asiidannakum idiin badiyo oo idiin badiye walain kafartum haddii aad kufrisaanna ina cadaabii aniga cadaabtaydu la shadiidun waa mid daran buu ilaahay yidhi wa qaala muusaa nabi muusaa wuxuu yidhi in takfuruu haddii aad gaalowdaan antum adinka iyo waman fil ardi makhluuqa dhulka ku sugan oo dhan jamiican dhammaan xaaleyihiin fa ina allaha ilaahay laqaniyun waa mid deeqtoon oo hodana xamiidun ay maxmuudun ee la mahdiyo alam ya'tikum miyaysan idiin imaanin naba'u ladiina kuwii khabarkooda min qablikum idinka horreeyeen qowmi nuuxi nabi nuux qoomkiisii ah iyo wacaadin qowmu caad wa hamuuda qowmu hamuud iyo waladiina kuwii min bacdihim kuwaa ka horreeyey laa yaclamuhum xaal uusan arrintooda ogeyn ila allahu ilaahay maahane jaa'adhum ummaddaasoo dhan waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid faradduu markaabii waxay celiyeen aydiyahum gacmahooda fii afwaahihim afafyaalkooday ku celiyeen wa qaaluu waxay dhaheen innaa annaga kafarnaa waxaanu ku gaalownay bimaa shaygii ursiltum laydinla soo diray bihi maaga wa innaa annagu la fii shakin shaki dhexdii baan ahaanay mimaa tadcuunaa shayga aad noogu yeeraysaan ilayhi maaga shakigaasoo muriibin qofka dareen ku abuura qaalad rusuluhum rusushoodiibaa waxay u tidhi afillaahi shakun war ilaahay miyaa shaki ku jiraa allahaasoo faadiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi dhulka abuuray yadcuukum ilaahay weydiin yeerayaa liyakfira lakum inuu idiin dhaafo min dunuubikum dunuubtiinna inuu idiin dhaafo idinkugu yeeraya oo wa yu-aakhirakum ou idin dib mariyo ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay muddada intii laga gaarana uu dib idin dhigo qaaluu waxay dhaheen in antum maa antum adinku ma tihidiin ambiyay ilaa basharun bini aadan baa tihiin basharkaasoo mithlunaa annagoo kaleeto ah turiiduuna waxaad doonaysaan an tasudduunaa inaad naga jeedisaan camaa shaygii kaana ay ahaayeen yacbudu aabaa'una aabbayaalkeennu kuwa caabuda fa'tuunaa noola imaada bisuldaanin xujo suldaankaasoo mubiinin cad bay dhaheen haddaad haydiin noola imaada qaalad lahum rusuluhum qaalad waxay u tidhi lahum ayaga rusuluhum rusushii loo soo diray in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun oon baan ahaanay bini aadamkaasoo mithlukum idinkoo kaleeta ah walaakina allaha ilaahay baa yamunu galladaysta calaa man yashaau qofkuu doono dushiisu ku galladaystaa nicmada iyo nabinimada oo min cibaadii addoommadiisa ka mid a wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaanin an na'tiyakum inaan idinla nimaadno bisuldaanin xujo ilaa biidnillaahi idanka ilahay inaan kula nimaadno ma ahani wa cala allaahi ilaahay falyatawakkali lmu'minuuna mu'miniintu ilaaha cuskadeen wamaa lanaa oo maxaa nugu dhacay bay dhaheen wamaa lanaa maxaa nugu dhacay allaa natawakkala inaanu tala saaran calallaahi ilaahay inaanu tala saaro weyno maxaaba naga hortaagan ilaahay baanu tala saaranaynaa ambiyadii baa sidaa dhahaya war inaanna ilaahay tala saaran maxaa naga hortaagan walxaal qad hadaanaa ilaahay ouna hanuuniyey subulanaa waddooyinkeenna ou nagu hanuuniyey walanasbiranna sabarnee oo sabarnee calaa maa aadaytumuunaa shayga aad nagu dhibaataydeen waanu ku sabraynaa wa calallaahi ilaahay falyatawakkali lmutawakkiluuna kuwa ilaahay tala saaranaya rabbi ha tala saarteen wa qaala aladiina kuwiibaa waxay dhaheen kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushooda waxay u dhaheen lanukhrijannakum idin bixinaa min ardinaa dhulkeenna idinka bixinayna ow latacuudunna
ama laabatiine oo laabatiino ahaatiine fii millatinaa diinteennaad ku soo laabanaysaan fa awxaa ilayhim xaggooda wuxuu u waxyooday gaaladii ee ambiyadii rabbuhum rabbigoodu lanuhlikanna aldaalimiina daalimiinta halaagnee oo halaagnee rusushii baa ilaahay wuxuu u waxyooday daalimiinta annagaa halaagaynoo baabi'inayna walanuskinannakum alarda dhulka idin dejinee min bacdihim ayaga markii la halaago kabacdina dhulka idinkaad degaysin ambiyay daalika nasriga iyo gargaarka waxaa helaya liman ruuxii buu ilaahay yidhi khaafa ka baqa maqaamii aniga maqaamkayga qofkii ka cabsada buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala hortayda in la soo taajinayo baa gargaarkaa helaya oo wakhaafa ka cabsada waciidi ay waciidii hanjabaadayda iyo goodigayga wastaftaxuu way furid dalbeen oo waa gargaar dalbeen ambiyadu nabi walba markii aad loo dhibay oo uu ka quustay qoomkiisa khayr inuu ka soo socdaba oo la yidhi wax dambe oo faa'iidaa laga helin maayo ayuu ilaahay gargaar ka dalbay wakhaaba marka cadaabta ilaah baa soo degootay wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid walboo xaqa ku tuntoo macangaga kaasoo caniidin oo macangagahoo madax adag min waraa'ihi hortiisa waxaa ahaatay gaalkaa jahannamu wayusqaa waxaa laga waraabinayaa min maa'in biyo xaggood biyahaasoo sadiidin oo carun ahoo waxa weeye nuuca ah ahlunaar ka soo miirmay yatajaracuhu biyahaasuu ka kaboonayaa walaa yakaadu una dhowaan maayo yusiiquhu ma'aasu inuu socdo oo wadma u dhowaan maayo wayaatiihi waxaa u imaanaya almowtu dhimasho min kulli makaanin dhinac walbay uga imanaysaa wamaa huwa gaalku ma ahaanin bimayitin mid dhinta wa min waraa'ihi gadaalkiisa waxaa ahaaday cadaabun cadaabkaasoo qaliidun ka kan buu ilaahay leeyahy mathalu ladiina kuwii mahalkooda kafaruu gaaloobay birabbihim ilaahooda ku gaaloobay acmaaluhum ka beddel acmaashoodu ka ramaadin dambas bay la mid tahay ramaadkaasoo ishtadad ay la darnaatay oo ay bitisay bihi asaga arriixu dabaysho fii yowmin maalinkaasoo caasifin dabayl badan laa yaqdiruuna gaaladu ma awoodaan mimaa kasabuu wixii ay shaqaysteen calaa shay-in waxba kama awoodaan daalika arrinkaas oo camalkoodii inuu burburay ah huwa asagu addalaalu baadi weeyi almubiinu ee cad daalika buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala macnaha arrintaa ku dhacday gaalada oo masaa'ibta ah oo camalkoodii burburay ah huwa asagu addalaalu albaciidu waa baadi fog alam tara ay alam taclam miyaadan ogsoonayn baa la yidhi ruuxa mukhaadabka ah oo lala hadlayo miyaadan arkinin anna allaaha ilaahay khalaqa inuu abuuray assamaawaati 7 samo iyo wal arda dhulkaba bilxaqi buu ku abuuray in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum idin tegsiye oo idin baabi'iye waya'ti la yimaadee bikhalqin khalqigaasoo jadiidin cusub wamaa daalika arrintaasu ma ahaanin calallaahi ilaahay dushiisa bicasiisin shay ku adag oo macnaha ku adkaanaya oo rabbi uusan awoodintaasu ma aha wa barazuu way soo baxeen ummaddii oo dhammi lilaahi ilaahay bay usoo banbaxeen usoo macnaha waxa weeye qubuurtii baa laga soo saaro ilaahay bay usoo daahireen jamiican dhammaan faqaala ducafaa'u kuwii tabarta yaray baa waxay yidhaahdeen kuwii la addoonsan jiray kuwii la khalday oo atbaacda ahaa oo caamada ahaa oo la lumiyey baa waxay leeyihiin liladiina kuwii waxay u odhanayaan istakbaruu iskibriyey innaa annagu kunnaa waxaan ahayn lakum adinka tabacan taabican mid raaca fahal antum ma tihiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xaggeena min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa min shay-in shay ka mida ma naga deeqi kadhaan qaaluu waxay dhaheen low hadaana allaahu ilaahay haddowna hanuunin lahaa lahadaynaakum waanu idin hanuunin lahayn bay dhaheen sawaa'un waxaa siman calaynaa dusheenna ajazicnaa argagaxnaya oo qaylinaya am sabarnaya maa lanaa nooma sugnaanin min maxiisin makaanu cararid iyo meel loo cararo wa qaala shaydaanu shaydaankii baa wuxuu yidhi odagii shaydaan ahaa lamaa qudiya alamru amarkii markii la xukumay ina allaha ilaahay wacadakum wuxuu idiin yaboohay wacda alxaqi yaboohii runta ahaa wa wacadtukum aniguna waxaan idiin yaboohay inaad i raacdaan fa akhlaftukum waana idinkaga baxo waa guub yaalay wixii aan idiin ballan qaaday aniga waxbaan idiin yaboohay
yaboohaygiina waa idinkaga baxayo been baan idin sheegay oo anugu waxbaan idin sheegayo waxaan macnaha idhi bacsi ma jiro sawaab ma jiro ciqaab ma jiro waana ka baxay wamaa kaana li iima sugnaanin calaykum dusheena min suldaanin wax saldano iyo awooda ilaa an dacawtukum inaan idin yeedho gacanta idin haatiye maahane fastajabtum lii waad i ajiibteen falaa taluumuunii ha i dagaalinina waluumuu dagaalo eedeeya anfusakum naftiinna maa ana anugu ma ihi bimusriqikum mid idin gargaari kara wamaa antum adinkuna ma tihidiin bimusrikiya mid ii gargaari kara innii anugu kafartu waxaan ku gaaloobay bimaa ashraktumuuni shayga aad ila wadaajideen min qablu hadda ka hor inna aldaalimiina daalimiintu lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaasu aliimun ay mu'limun xanuujinaya wa udkhila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyey wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna la yimid jannaatin baa la geliyey jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda al anhaar webiyaalkii khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa jannaadkaa biidni rabbihim rabbigooda idankiisaa lagu geliyey taxiyatuhum salaantoodu fiihaa jannada dhexdeeda ayaga isbariidintoodu salaamun salaam weeye bismi illaahi araxmaani araxiim waxaanu meeshan ka bilaabaynaa dersigeenni tafsiirka qur-aanka dersigeenna caawa wuxuu ka bilaabanayaa suuradda la yidhaha suuratu ibraahim waa suuraddii 14 markii laga soo bilaabo faatixada ilaa suuraddan waa suuraddii 14 suuraddaani waa suurad makiye ah aayaadkeeduna waa 52 aayadood caqaa'idka iyo usuushay ka hadashaa marba hadday maki tahay suuraddan waxaa looga sheekay doonaa waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam risaaladiisa way ka hadli doontaa qoomkiisa dacwada oo ugu yeedhana way ka hadli doontaa gaaladu beeninta ay beeniyeen ambiyadiina waa laga sheekay doonaa sidaa oo kaleeto waxay kaloo suuraddaani ka hadli doontaa aakhirada dadka ahlu naarka waxa ku dhici doona oo ilaahay beeniya iyo dadka mu'miniinta waxyaabaha ilaahay ku amaalmarinayo taana waa laga sheekay doonaa hadda suuraddan waxaa suuratu ibraahim loogu magacaabay nabi ibraahim baa magaciisa lagu sheegay nabiyullaahi ibraahim baa lagu sheegayo maafirtii iyo wanaagyaalkii nabiyullaahi ibraahim iyo sidau ilaahay u caabudi jira u baryi jiray ka sheekayda bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisaanu ku bilaabanaynaa allahaasu arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariista alraxiimi naxariista gaar ahaaneed mu'miniinta aakhira u naxariista alif laam ra alifkaa iyo laamkaa iyo ra'daa saddexdaa xaraf allahu aclam bimuraadih kitaabun anzalnaahu haadaa qur'aankaani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasu anzalnaahu aan soo dejina buu ilaahay yidhi ilayka adiga ayaan kuu soo dejinay nabi moxamedow calayhi salaatu wasalaam kitaabka adigaan kuu soo dejinay adiga ayaan kuu waxyoonnay ujeeddada loogu talagalay kitaabkana waa loo sheego nabiga waxa weeye litukhrija annaasa dadka inaad ka saarto baan kitaabka u soo dejinnay min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri nuurka aad u saarta weeyaan bini aadamka in jahliga iyo baadida gaalnimada qurunka laga reebo oo nuurku waa cilmiga waa iimaanka waa khayrka in la baro ayuu ilaahay kitaabkiisa u soo dejiyey biidni rabbihim rabbigooda idankiisana biidni rabbihim rabbigooda idankiisana aad macnaha uga saarto oo dadka waxa weeye biamrihi wa tawfiiqihi dadka markii aad khayrka u saarayso iraadada ilaahay aad ku socotaa xaggeed haddana u saaraysaa ilaa siraadil casiisi allaha casiiska waddadiisa xaggiisa aad u bixido weeyaan dadka inaad ku hanuunido ood macnaha waxa way u bixiso ilaa siraadil casiisi allaha casiiska waddadiisa allahaasoo alxamiidi ay almaxmuudi la mahdiyo dadka inaad ku hanuuniso waddada ilaahay allaha casiiska xukunkiisa u qaalibka ah oo luqo walbaba lagu mahdiyo almumajadu fi kulli makaan allahi ilaahay waddadiisa ummadda inaad ku tarbiyaydo ood u saarto alladii ilaahaasu lahu ay u sugnaatay maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqa ku sugan iyo wamaa fi lardi makhluuqa dhulka joogaba ilaahay baa iska leh
asaguna makhluuq oo dhan uma baahna koonkoo dhanna wuu ka taliyaa wa waylun halaag wuxuu u sugnaaday wayl halaag iyo khasaara waxay u sugnaatay lilkaafiriina gaalada min cadaabin bay uga sugnaatay cadaabkaasoo shadiidin daran buu ilaahay leeyahy imaam la yidhaha imaamu zajaaj wuxuu yidhi waylku waa kelimatun tuqaalu lilcadaab walhalakati weeyaan halaag wuxuu u sugnaaday gaalada ilaahay beeniyey cadaab shadiida xaggiisay uga ahaatay alladiina gaaladaasoo yastaxibuuna alxayaata noloshii jeclaadeen noloshii addunyaa ee dhoweed cala alaakhirati bay ka jeclaadeen nolosha adduunyada waxay ka doorteen gaaladu aakhirada nolosha adduunkay doorteen aakhiradii baaqi noqonaysana way naceen wayasudduuna dadka waxay ka jeedinayaan can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa dadka waxay u diidayaan diinta islaamka wayabquunahaa waddadii ilaahayna waxay la dalbayaan ciwajan qallooc bay la dalbayaan buu ilaahay leeyahy oo waxay doonayaan diinta ilaahay iyo waddada ilaahay loo maro in ay macnaha aflagaadeeyaan dadka inay nacsiyaan islaamka inay u caayaan gaalada waxay ummadda ku kharribeen waxa ugu fara badan waa macnaha caqli iyo maskax bay isticmaaleen iyo siyaaso islaamkii oo dhan bay waxay ummaddii uga dhigeen wax la naco oo si macnaha waxa weeye si tartiiba bay ummaddii islaamka waxa weye ku nacsiiyeen ulaa'ika kuwaas buu ilaahay leeyahay fii dalaalin baadi dhexdii bay ahaadeen dalaalkaasoo baciidin fog kuwaanu weligood kuwa khayr noqon maayaanoo gaalada intaasoo tilmaamood loo yeelay baadi fog bay ku sugan yihiin laa yurjaa lahum salaaxun walaa najaaxun weligood inay liibaanaan la sugi maayo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa ma aanu dirin min rasuulin rasuul ma aanu dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa luqadiisa inaan ku dirna mooye nabi walboo la dirayo luqada qoomkiisaa lagu dira nabi walba oo ummadihii hore ka mid ah ummadihii hore loo soo diray ummaddaa loo soo diray luqaday ku hadasho baa lagu soo diri jiray nabigeenu laakiin carabi buu ku hadli jiray inkastoo qof kasta uu luqadiisa haddana ugu waxa weeye ama biwaasida ha ku ogaado ama ha ugu jawaabo ama ha gartee wuuna fahmi jiray risaaladiisuna meel walba way gaartay ilaahay wuxuu leeyahay nabi walboon soo dirno bilisaani qowmihi baan ku soo dirayn liyubayina lahum si xaqa uu ugu caddeeyo oo macnaha muraadkiisa muraadkooda uu fahmo oo markaa ay risaaladii loo garto fa yudilu allahu ilaahay wou lumiyaa man yashaau qofkuu doono wayahdii man yashaau qofkuu doonana wou hanuuniyaa wa huwa ilaahay alcasiizu waa mid xukunkiisa u qaaliba alxakiimu ee xigmad badan oo fal suuban ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wadiifada rusushu waa uun dadka xaqa inay u sheegaan hanuunka iyo iimaanka awoodda ilaah bay ku jirdhaa ilaahay qofkuu doonou lumiyaa qofkuu doonou hanuuniyaa wa huwa ilaahay alcasiizu alxakiim ilaahay wuxuu kaloo na leeyahay walaqad xaqiiqanimee arsalnaa waxaanu dirnay muusaa nabi muuse biaayaatina aayaadkeenaan la dirnay nebiyullaahi muusa ilaahay baa soo diray aayaad mucjizaada ushii iyo gacantii iyo qaybihii aanu soo marno 9 aayadoo mucjizaadka ahaa ayuu ilaahay la soo diray nabiyullaahi muusa waxaa lagu yidhi waxaa loo soo diray reer banu israa'iil oo la addoonsanayo fircoon wuxuu ahay nin madax ah oo kibray oo waddan dhan iska gumaysanayo madaxnimo iyo kibir ku jira weeye wuxuu xukumi jiray 2 qolo oo qolana la yidhaha qibdiyiin qolana reer banu israa'iil reer banu israa'iil waa lagu xamaashaa waa lagu shaqaystaa waxa weeye nimankoodana wuu gowracaa oo naftu ka gooyaa gabdhahana waxa weeye waa addoonsan jirayo dadkan qibdiyiinta ah waa boqorro camal gabdhahan reer banu israa'iil baa u xamaalaya u shaqaynaya qoryaha soo guraya cuntada karinaya kushiinka ku jira dadka asagoo sidaa u gumaysanaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayuu ilaahay soo diray waxaa la yidhi reer banu israa'iil horta dadkan waxaa la reer banu israa'iil kaliya maahane dadkan lagu soo diray mugdi bay ku jiraan gaalnimay ku jiraan kasaar mugdiga iyo gaalnimada oo xaqa u sheeg baa la yidhi ilaa nuuri aliimaan watawxiid u saar weeyaan ugana sheekay nicmooyinka ilaahay u galay intaasoo nicmo sow ilaahay idinma gelin intaasoo nicmo sow ilaahay idinma gelin sow ilaahay fircoon xataa nabiyullaahi muusa waxa weeye waxaa loo sheegayaa waxaa nabiyullaahi muusa lagu leeyahay ummadaada uga sheekay nicmooyinka ilaahay u galay walaqad xaqiiqanimi arsalnaa waxaanu soo dirnay muusa nabi muuse biaayaatina aayaadkeenaan la soo dirna u ilaahay yidhi
waxaan ku nidhi an akhrij ay akhrij saar qowmaka qoomkaaga min adulumaati mugdiyaalka ka saar ila annuuri iftiinka u saar wadakirhum xusuusi oo ku waani biaayaati illaahi biayaami illaahi ilaahay ayaamtiis biayaami illaahi weeye ayaamullaahi waxaa looga jeedaa ayaadihi wa nicamihi maalmihii iyo nicmooyinkii ilaahay ayaamillaah ilaahay nicmooyinkiisii oo u galay uga sheekay inta nicmo ilaahay u galay inta nicmo ilaahay u galay bal si ay ugu shukriyaan inna fii daalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ahaada buu ilaahay leeyahay oo arrintaa ku sugan inna fii daalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ahaaday oo markaa waxaa la ishaarayaa waxa weeye waanintaa iyo xusuusintaa ilaahay nicmooyinkuu u galay la xusuusiyo la aayaatin aayaad iyo calaamooyin awoodda rabbi lagu garto likulli sabbaarin mid kasta oo sabar badan oo daacada ilaah ku sabra shakuurin shukrin badan oo nicmada rabbi ka shukriya aayo iyo calaamooyin iyo aayaad oo ku cibro qaata ku sugan weeye waid waqti ka sheekay nabi moxamedow sala allahu calayhi wasalam qaala muusaa nabi muuse ou yidhi liqowmihi qoomkiisa wuxuu u yidhi udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiinna oo u galay nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabi moxamed baa waxaa lagu leeyahay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muusa markii uu qoomkiisa la hadlayey oo uu ku lahaay war qoomkaygow ilaahay nicmadu idiin galay yaan la halmaamin nicmada rabbi idiin galay sow ilaahay fircoon idinkama badbaadin fircoon oo cadaab idin dhadhansiinaya oo wiilasha idinka gowracaya oo gabdhihiinna waxa weeye reebayo ayagana addoonsanaya bow ilaahay idinka reebay baddaa lagu halaagay adinkiina waa laydin badbaadiyey war reer banu israa'iilow reer banu israa'iil qur-aanku waa qolada ugu fara badan oo mar walba uu ka sheekaynayo waxay ahaayeen qolo aad u qallafsan oo mar walba ilaahay u nicmeeyaba nicmada ilaahay ku jisaara ayay ahaayeen baa la yidhi markaabaa qur-aanka aad looga sheekeeya waid waqti xus qaala muusa nabi muuse ou yidhi liqowmihi qoomkiisa wuxuu u yidhi udkuruu xusuusta nicmatallahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiinna oo u nicmeeyey id waqti buu ilaahay idiin nicmeeyey anjaakum ilaahay ou idin badbaadiyey oo idin samata bixiyey min aali fircawna fircoon ahaladiisii fircoon aalkiisa waxaa looga jeedaa fircoon iyo intii ku guruub ahaad oo reer qibdiyiinkii idin gumaysanayey ilaahay waa idinka reebay dulliga idinku hayeen addoonsiga idinku hayeen fircoon iyo waxa weeye zabaaniyadiisa isaga la jooga dhibkoodii ilaah baa idinka reebay yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayeen su'al cadaabi cadaabta middeeda xun sida xoolaha loo daajiyo cadaab bay idinku foofinayaan oo idin dhadhansiinayaan cadaabta midda ugu xun aad bay idin dhibi jireen weeyaan idin gumaysa jireen wayudabbixuuna waxay gowracayeen abnaa'akum wiilashiin fircoon iyo dadka la joogaah wayastaxyuuna waxay ka xishoonayeen oo reebayeen nisaa'akum dumarkiin waxaa la yidhi gabdhahana fircoon waa iska dhaafi jiray wiilasha reer banu israa'iilna waa gowrici jiray reer banu israa'iil wiilashoodana waa gowrici jiray gabdhahana waa reebi jiray baa la yidhi laakiin gabdhaha naftooda waa gumaysanayaa oo waa addoonsanayaa oo waa ku shaqaysanayaa weeyaan raggana wuu gowracayaa fikraddaasna wuxuu ka helay baa la yidhi fircoon arrintaa markuu samaynayey wuxuu ka helay baa la yidhi nin macnaha waxa weeye kaahin ah nin kaahin ah ayaa wuxuu ku yidhi baa la yidhi fircoon wuxuu u yidhi sanadkan xidiga iyo waxbuu asagu fiirshay markaasuu nin kaahiniin badan buu lahaa wuxuu yidhi sanadkan wiil reer banu israa'iila oo dhala doona ayaa mulkiyadaada gacantaada ka saari doona markaasuu wuxuu yidhi wiil walboo dhashaba nafta ha laga gooyo nabi muuse sidii uu ku badbaadayna suuratulqasas bilowgeedaanu ku soo marnay qisadii ilaahay ilaaha nabi muuse ka badbaadiyey laakiin waqtiyadii wiilasha la gowrici jiray ou xataa dhashay nabiyullaahi muusa calayhi salaam marka isagoo sidaa fircoon dadka u gumaysta markii dambe waa la halaagay ilaaha ka badbaadiyey wa fii daalikum ismu ishaarada haddii loo celiyo badbaadinta balaa-intu nicmo weeyaan wa fii daalikumta haddii loo celiyo dhibkaa uu idiin geysanayana balaa-intu waa musiibadiiyo waa balaayo marka balaa-inta laba arrimo labadaa macnaa lagu macneeya wa fii daalikum arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan balaa-un belo
oo min rabbikum rabbigiinna xaggiisa ka ahaatay imtixaam laydiin geystay iyo nicmo ilaahay idiin galoo badbaadinta idinka badbaadiye ah balahaasoo cadiimun weyn buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wa id waqti ka xus nabi moxamedow oo ka sheekay ta'adana rabbukum nabiyullaahi muusa wadkuruu baa la leeyahay nabiyullaahi muusa baa wuxuu qoomkiisa ku yidhi wa id waqti xus ta'adana rabbukum nabigeenna macnaha amarka la siinaya laakiin ta'adana rabbukum rabbigiinu ou ogeysiiyey ama waxaa la yidhi nabiyullaahi muusa wuxuu la hadlayaa qoomkiisii markaasu wuxuu ku leeyahay wa id waqti macnaha wadkuruu xusuusta id waqti ta'adana ou ogeysiiyey rabbukum ilaahiinu reer banu israa'iilow rabbigiinna wuxuu ogeysiiyey la-in shakartum la asiidannakum haddii aad shukrisaan nicmada waan idiin kordhinaya wala-in kafartum haddii aad gaalowdaanna inna cadaabii la shadiidun haddii aad diiddaan nicmadayda inaad ka shukrisaan oo aad nicmadayda inkirtaanna cadaabtaydu way daran tahay idinku dhacaysa sidaa ogaada inna cadaabii la shadiidun wa qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddii aad gaalowdaan qoomkiisii ula hadlaya reer banu israa'iil in takfuruu haddii aad gaalowdaan antum adinka iyo waman fil ardi makhluuqa waxa ku sugan jamiican dhammaan fa ina allaha ilaahay laqaniyun waa mid deeqtoon oo hodan ah xamiidun ay maxmuudun ee la mahdiyey markii uu ka quustay baa li reer banu israa'iil ilaahay inay rumeeyaan oo wuxuu ku yidhi war haddii aad gaalowdaan adinka iyo makhluuqa adduunyada ku nool oo dhan ilaahay waxba uma geysan kartaan ilaahay waa idinka deeqtoon yah addoommadiisa shukrigooda uma baahna ilaahay in lagu mahdiyo wou mutaystaa haddii lagu kufriyana kufrigaas waxba loogama qaadi karo alam ya'tikum miyuusan idiin imaanin ilaahay wuxuu leeyahay alam ya'tikum miyuusan idiin imaanin naba'u ladiina kuwii khabarkoodii min qablikum idinka horreeyey war kuwii khabarkooda miyuusan idin soo gaarin qowmi nuuxin nabi nuux qoomkiisii wa caadin qowmu caad wa hamuuda qowmu hamuud iyo waladiina kuwii min bacdihim kuwaa ka sii dambeeyey laa yaclamuhum xaaluusan ogeyn arrintooda iyo cadadkooda ila allahu ilaahay maahani dhammaan ummadahaasoo dhan cadadkooda ilaahay baa dhab u garanaya jaa'adhum ummadahaasoo dhan waxaa u yimid qowmu caad qowmu nuux qowmu hamuud rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad iyo mucjizaad bay ula yimideen iyo xaq loo soo dhiibay marka xaqii markay raaci lahaayeen ma aysan raacin weeyaan macnaha waxa weeye gacmahoodii bayba qaniineen faradduu waxay celiyeen aydiyahum gacmahoodii calaa fii afwaahihim baan rabaa afkoodii ku celiyeen gacmahoodii afka dejiyaan waxaa looga jeedaa beenin ay beeninayaan ciil ay u qabaan khayrkaas iyo diidmo ay diidayaan gacmahoodii qaniineen afkay dejiyeen macnaha qofku markuu shayga diidan yahay faruryaha wuu qaniinaa baa la yidhi wuxuusan rabin marka la sheegana sidaasoo kale way dhacdaa wa qaaluu waxay kaloo dhaheen baa la yidhi innaa annagu kafarnaa waxaanu ku gaalownay bimaa shaygii ursiltum laydinla soo diray bihi maaga wixii laydinla soo diray waa ku gaalownay shayga aad sheeganaysiin annagu waa ku gaalownay dheheen baa la yidhi wa innaa annagu la fii shakin baan ku sugannahay shaki baa nooga jira mimaa shaygii tadcuunanaa aad noogu yeeraysaan ilayhi maaga shakigaasoo muriibin dareen qofka sii geliya annaga shaki weyn baa nooga jira waxaad noogu yeeraysaan wa qalaqin wa diraabin min diinikum saas bay ka wadaan baa la yidhi diinta aad noogu yeeraysaan iyo shayga aad noo sheegaysaanba annagu shaki baan ka qabnaa waxa aad noogu yeeraysaan shaki baaba nooga jira bay dheheen gacmahooday macnaha afka dejiyeenna waxa weeye si ay ciil ay u qabaan baa la yidhi oo ay ka xun yihiin xaqaas macnaha loo sheegay ka xun yihiin weeye rusushii marka way la hadashay qoladaas waxaa la yidhi rusushii baa la hadashay waxaa lagu yidhi alam ya'tikum taan waxaa wata nabiyullaahi muusa calayhi salaam baa wata qaalat rusuluhum rusushoodii waxay ku dhaheen afillaahi ilaahay ma waxaa ku sugan shakun miya ahaaday war ma ilaahay baa shaki idinkaga jiraa bay ku dhaheen ilaahay miyaad shaki iyo dood ka qabtaan ilaahay miyaa shaki idinkaga jiraa maxaa yeele waxa weeye afii wujuudillaah
wa waxdaaniyati shakun saasay ka dhiganta rusushii saasay ugu jawaabeen war ilaahay jiridiisa waaxidnimadiisa shaki miyaa idinkaga jira arrintaa shaki ma aqbalayso adiladu way iska muuqataa war maxaa idinku dhacay allahaasoo faadiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi dhulka abuuray yadcuukum ilaahay wuu idin yeerayaa liyakfira lakum dembiga inuu idiin dhaafo ou idinkugu yeerayaa min dunuubikum dunuubtiinna inuu idiin dhaafo ayuu ilaahay idinkugu yeeraya walilaahay rumeeya dembigiina inuu dhaafo idinkugu yeeraya dad iimaanka laydinka helo oo markii aad ilaahay rumaydaan cadaabta laydinku soo dedejin maayo laydinna cadaabi maayo wa yu'akhirakum ilaahay inuu idin dib dhigo buu idinkugu yeerayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay markii sidaa loo waaniyey waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen ummadahaasi ambiyadii waxay ku dhaheen in antum maa antum adinku ma tihidiin ilaa basharun bini aadam baad ahaateen basharkaasoo mithlunaa annagoo kaleeta oo maxaadna dheer tihiinba wax kale ma tihidiin bay dhaheen oo aan bini aadam aan ahayn wax fadliya nama dheeridiin turiiduuna waxaad doonaysaan ambiyay an tasudduuna inaad naga jeedisaan camaa shaygii kaana ay ahaayeen yacbudu aabaa'unaa aabbayaalkeennu kuwa caabuda aabbayaalkeennu asnaam bay caabudi jireen asnaamtii baad noo diidan tihiin fa'tuunaa la imaado ambiyay bisuldaanin xujo cad suldaankaasoo mubiinin cad la imaadoo xujo ka marakacaysa rasuulnimadiina noo keena oo malaa'igtu inta timaado masalan hana dhahdo run bay sheegayaan qaalad lahum waxay u dhaheen ummadahaas rusuluhum rusushoodii in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun horta bini aadam maahane wax kale ma nihin hadalka iyagu ay dhaheen baa loogu macnaha waxa weeye hadalkaa loo qaboojinayaa waa ruma horta bini aadam waana walaakina allaha ilaahay baa yamunu galladaysta calaa man yashaau qofka uu doono oo min cibaadii addoommadiisa ka mid a ilaahay baa fadliga dheerkana siiyo rasuul naga dhigayo risaalo noo soo diray fadli dheeraadaho gooni a ma aysan kama hadlin baa la yidhi ambiyadu kaliya waxay u sheegeen bini aadam idinla mid ahaana laakiin maxaa ka dambeeya wixii ka dambeeya idinkala mid maahin walaakina allaha yamunu man yashaau min cibaadih wamaa kaana lanaa annaga nooma sugnaan bay dheheen ambiyadii an na'tiyakum inaan idinla nimaadno bisuldaanin xujo inaan idiin keenno ilaa biidni illaah waxa aad dalbanaysaan idan ilaah bay ku iman karaan wa cala allaahi ilaahay falyatawakkalil mu'minuuna mu'miniintu ilaah ha cuskadeen umuurtoodoo dhan ilaahay haw tala saarteen leanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaah buu tala saaran jiray qur-aanka in badan waxaa la yidhi ilaahay tala saarta nabiyullaahi ibraahim ilaahay buu tala saartay marka tala saarashadu nabigeennu wuxuu yidhi haddaad ilaahay tala saaran lahaydeen la rasaqakum kamaa yarsuqu dayru shimbirka kayd meel wax uguma jiraan bangi wax uguma jiraan akoon wax uguma jiraan ilaahay xayawaanaadka aad u jeedo ilaahay wuxuu siiya bay ku nool yihiin sida iyaga loo irsaaqo ayuu ilaahay idiin irsaaqi lahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay dhab u tala saaran lahaydeen wamaa lanaa ambiyadii waxay dhaheen wamaa lanaa oo maxaaba nagu dhacay wa ayu shayin yamnacunaa min atawakul wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa natawakkala inaanu tala saaranno calallaahi ilaahay maxaa naga hortaagan waanu tala saaraynaa ilaahay walxaal qad hadaanaa ouna hanuuniyey subulanaa waddooyinkeenna xaqa ah oon ku taagannahay ilaahay baa nagu hanuuniyey faalxamdu lilaah asagaanu tala saaranayna waddada lagu badbaadi karo oo cadaabta ilaah looga badbaado ilaahay asagaa noo sheegay waxay kaloo ambiyadu dhaheen walanasbiranna sabarnee oo sabarnee calaa maa aadaytumuunaa dhibka aad noo geysateen gaalay waa ku sabraynaa bay ambiyadii dhaheen dhibka aad noo geysateenna waan ku sabraynaa aayadaha nabigeenna waxaa loogu sheegay ambiyadii ka horrayday inuu ku daydo oo ku sabro waa tasliyo oo markaa isaguna uu sidaa u sabro walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wa cala allaahi ilaahay falyatawakkalil mutawakkiluuna kuwa ilaahay tala saaranaya ilaahay ha tala saarteen ilaahay tala saarkiisa ha daa'imeen oo waxa weeye ilaah ha cuskadeen wa qaala aladiina kuwii baa waxay dhaheen kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushoodii waxay u dhaheen gaaladiibaa rusushii waxay ku dhaheen lanukhrijannakum idinka saarnee min ardinaa dhulkeenna waan idinka saaraynaa waddankeenna waa idinka cirdaynayna nabigaba gaaladu waa kuwii ku dhaheen magaalada mako waa kaa cirdaynaynaa bay ku dhaheen gaaladu sidaasi ay ugu dhihi jireen ambiyada weligood
dhulka waydinka saaraynaa ow latacuudunna ama waxaad ku soo laabanaysaan fii millatinaa diinteenna ama gaalnimadeenna qaata oo diinteenna ku socda ama dalkeenna waydinka bixinaynaa ambiyadii markii dhibkaa loo geystay nabi walba la dhibay oo la yidhi waddanka waa lagaa saarayaa waxaa loo waxyooday annagaa halaagayna adinkana dhulka waan idin dejinaynaa buu ilaahay yidhi fa awxaa ilayhim ilaahay wuxuu u waxyooday ambiyadii rabbuhum rabbigooda wuxuu u waxyooday lanuhlikanna aldaalimiina dhaalimiinta waan halaajinaynaa buu ilaahay yidhi acdaada ah walanuskinannakum alarda adinkana dhulkaan idin dejinaynaa min bacdihim ayaga bacdigood markii la halaago dhulka adinkaa laydin dejinaya gargaarkaa marka yaa la siiyaa in gaalka la halaago cadowga ah mu'minkana loo gargaaro waxaa helaya gargaarka mar walba addoonka ilaahay oo ka baqa cadaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay daalika gargaariddaa iyo dhulkii oo waxa weeye laydin dejiyo waxay u sugnaatay liman ruuxii khaafa ka baqa maqaamii aniga maqaamkayga horjoogsigayga qofka ka baqa mawqifka agtayda la soo taajinayo qofka ka baqa weeyaan macnaha waxa weeye qiyaamii calayhi bilxisb maqaamkaas ou soo istaagi doono waliman khaafa maqaama rabba ilaahay hor istaagiisa waliman khaafa maqaama rabbi waa tii la yidhi aayadda qur-aankaas wey aayaddaas waa tii la yidhi wanaha nafsa can ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa ilaahay marka wuxuu leeyahay daalika liman khaafa maqaamii hor istaagayga qofka ka baqa oo wakhaafa ka cabsada waciidi aniga iyo goodigayga cadaab aan ku dhaartay iyo hanjabaadayda qofkii ka cabsada ayaa wuxuu helayaa in loo gargaaro dhulkana asaga la dejiyo gaalka xunkaana la halaago ambiyada markii aad loo dhibaateeyey ilaahay bay macnaha waxa weeye gargaar ka dalbadeen wastansara arusulu billah calaa qowmihim wastaftaxuu ilaah bay ka furi dalbeenoo ilaahu khayrka noo fur ilaahu noo gargaar gaaladii waana dhibeen nabi walba markuu ka quustay qoomkiisii nabiyullaahi nuux ka soo bilow ilaa nabi ciise ilaahay buu gargaar weydiistay waana loo gargaaray markii ilaahay gargaarkiisii soo degooday oo gaaladii xunkaahi la halaagay wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid walba oo macnaha waxa weeye jabbaar ah oo mutakabbira oo iskibriya oo isweyneeya jabbaarku waxa weeye waa ruuxa naxariis laawaga ah oo kibirka badan mutakabbirka ah kaasoo caniidin ee macnaha waxa weeye magaraati ahoo macnaha waxa weeye macangaga baa la yidhaahdaa aad u macangagoo dhib badan mucaanid xaqa diidaya ah min waraa'ihi gaalka ama jabbaarka gadaalkiisa waxaa ahaaday waraagu waxay ka mid tahay ashyaada loo isticmaalo labada macno hortiisa hadda looga jeeda min waraa'ihi hortiisa waxaa ahaaday min waraa'i daalik waxa ka dambeeya waa naarta uu macnaha geli doono min waraa'ihi gadaalkiisa waxaa ahaaday jahannamaa la geli doonaa gaalka xunkaa jahannamu gelaya wa yusqaa waxaa la waraabinayaa min maa'in biyahaasu sadiidin milil ah weeyaan sadiidka waxaa la yidhaahdaa waa biyaha mililka ah alqayxu aladii yasiilu min ajzaadi ahli nnaar waxa weeye waa malaxda iyo maasha gaalada jismigooda marka la cadaabo ka soo miiranta carunka oo waxa weeye malaxdu ku darsan tahay ayaa la yidhaahdaa sadiid baa la yidhaahdaa gaalku markii ou oomo waxaa la yidhi waxaa la iskugu derayaa kulayl oo oon badan lagu rido iyo qurun iyo qaraar saddexdaa arrimood baa loo kulminaya markaasaa waxaa la leeyahay waxaad biyahaan ka dhigatiin biyaha wasaqda ah oo maashiya dhiigga isku daran ah oo ahlu naar ka soo markii laydin cadaabiga idinka yimid ayagii caba malaa'igtii baa siinaya yatajaracuhu wou ka kaboonayaa aad bay u dhibaysaa dhuunta ma mari karaan marka waa wax dhibayo isku qasbayo waa laqlaqayaa walaa yakaadu una dhowaan maayo yusiiquhu maa aasu in ou wadmoo dhuunta maro maba u dhowaanayaba ilaahu naartaada naga badbaadi midda kale ilaahay wuxuu leeyahay waya'tiihi waxaa u imaanaya gaalka almowtu dhimasho min kulli makaanin dhinac walba ay uga imaanaysaa xanuunkii dhimashada ayuu dhadhaminayaa wamaa huwa mana ahaanin bimayitin mid dhimanayana ma ahaanin adduunyada markii qofka wax gaaraan
hadda wuu dhimanayay markii wax macnaha waxa weeye hal marba naftu ka baxaysa. gaalku naarta ku jira laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa, mana noola mana dhiman. marka waxa weeye dhimashada xanuunkeedii buu dareemayaa, mana dhimanaya buu ilaahay leeyahy. cadaab buu marka waxa weeye looga dhigayaa. wa min waraa'ihi gadaalkiisa waxaa ahaaday cadaabun, cadaab baa hortiisa ahaatay. cadaabkaasu qaliidun ka kan cadaab adag ayaa hortiisa ahaatay buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. ilaahay haddana wuxuu noo sheegayaa gaalada waxa ay samaynayaan. gaaladu waxay samaynayaan sidaad ujeedaba ashyaa badan oo samafal ah bay sameeyaan. samafalka ay samaynayaan waa badan yah. waxay samaynayaan sadaqay bixinayaan, qaraabaan xariiraynaa bay ku leeyihiin, qof dhibaataysan bay fakinayaan, qof bay marti qaadayaan, waxbay qabanayaan. waxaa samafalkaho gaaladu samaynayso qiyaamada markii la tago waxba kama jiraan weeye, waa hal bacaad lagu lisay. ilaahay wuxuu yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuuran. maxaa yeelay qofka marka aakhiro wax lagu macnaha waxa weeye khayr lagu amaalmarinayo waxay macnaheedu ka dhigan tahay waa qof mu'min ahaa. hadda iyagu waxa weeye iimaan baa laga waayey. mar haddii uusan iimaan lahayn aakhiro marka waxba ugama horeeyaan. camalkoodii buu ilaahay noo sheegayaa gaalada. mathaluladiina kuwii masalkoodii kafaruu gaaloobay birabbihim ilaahooda ku gaaloobay oo adduunyada waxa weeye acmaal ku sameeyey sadaqo iyo qaraabo la xariiriyo waxa oo kaleeto. acmaaluhum acmaashi ay soo sameeyeen ka ramaadin dambas la bitiye bay la midta. ramaadkaasu ishtadad ay ku darnaatay bihi ramaadka arriixu dabaysha fii yawmin maalin caasifin oo aad u dabayl badan. maalinka dabaysha badan u socoto dambasku ciidda xataa waa kasii jilacsan yahay, waa bidayaa eber meel uu ka baxa arki maysid. gaalada camalkooduna noocaas weeyo ramaad oo kale ilaahay ku matelay. ilaahu camalkeena dambas biday ha ka dhigin. maxaa yeelay waxa weeye dambaska qalbi waxaa jira dambas lamidana waa jira. qalbigeena ilaahay dambas kama dhigo. qalbi khushuucaya oo ilaahay ka cabsanaya oo aayadda qur-aan ku khushuucaya oo qur-aanka ilaahay agtiisa oo ku waya ilaahay nooga dhigo. leanna waxaa jira qalbi lagu matelo dambas oo kaleeto iyo camal dambas oo kale lagu matelo. camalka dambaska lagu matelay waa camalka qofka aan iimaanka lahayn oo gaalnimada ku dhinta wax walba hore u soo sameeyey waa hal bacaad lagu lisay. dambas biday oo kaleo ilaahay ku matelayaa, wax jira ma aha. wakadalika qalbiga dambaska lagu matelaana waxa weeye waa qalbiga si walba haddii wax loogu sheego aan waxba gelaynin oo qallalan. qalbigaasna dambasuu lamid yahaa baa la yidhi. nin shaacira baa wuxuu yidhi walow nafakta naaran la adaa'at walakin anta tanfuqu ramaada. haddii dab aad afuufto ama aad babbiso wuu ifayaa, laakiin dambas cidlaa haddii aad maanta o dhan aad macnaha babbinayso dambasku aduu kugu bidayaaba waxba tarin maayo. wakadalika waxa weeye qalbigii dhinta haddii aad wax walba u sheegto hadda waxaan jirin buu noqonayaa. ka ramaadin ishtadad bihi ariixu fii yawmin caasifin laa yaqdiruuna ma awoodaan gaaladu mimaa kasabuu wixii adduunyada ay soo shaqaysteen oo camal ahay calaa shayin hal xaba kama helayaan, waxba kama awoodaan. waa lumay wixii ay soo sameeyeen oo dhan eber weeyaan. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala sidaas baa loo halaagayaa weeye wixii ay soo qabteen. marka tamhiil baa laga bixiyey. daalika arrinka nuucaa lagu soo matelay acmaashoodii huwa daagaasba addalaalu baadi ah albaciidu ee fog. ilaahay wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkinin alam tara miyaadan arkaynin ana allaha ilaahay khalaqa inuu abuuray alsamaawaati waalarda dhulka iyo samaawaadka ilaahay baa abuuray bilxaqi buu ilaahay ku abuuray isagoo xaq ku dheehan baadil ma aha. in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum ilaahay idin tegsiye oo kulligiinba inta ilaahay beeninaysa ilaahay hadduu doono waa baabi'in karaa. gaaladii baa sidaa lagu odhanayaa. waya'ti ilaahay la yimaadee bikhalqin makhluuq buu la imaanayaa jadiidin cusub. wamaa daalika arrintaasu ma ahaanin ilaahay inuu sidaas sameeyo arrintaasi ma ahaanin alidhaab waalityaan inuu idin baabi'iyo ummad kala abuuro cala allahi ilaahay dushiisa bicasiizin mid ku adag oo macnaha waxa weeye ku adag oo culaysku ama ahaanin. waxaa la yidhi qiyaamada markii la yimaado ummadoo dhan waa soo banbaxayaan, waa soo daahirayaan. ilaahay baa lasoo hortaajinayaa. wa barazuu khalaa'iqdii way soo daahireen lilaahi ilaahay bay usoo daahireen. dhammaantood waxay usoo banbaxeen qubuurtii baa laga soo bixinayaa waa sidii loo xisaabiyo oo loo amaalmariyo.
marka baraasku waa banaanka qiyaamo laiskugu yimaado halkaabay iskugu imaanayaan banaankii qiyaamo markay iskugu yimaadiin baa la yidhi bay isku cabaadayaan oo is eedaynayaan dadkii dembiga samay jiray wa barazuu waxay u soo macnaha banbaxeen lilaahi ilaahay jamiican dhammaan xaalihiin makhluuqi ay usoo macnaha waxa weeye ay usoo baxeen oo banaankii ilaah baa lasoo wada hortaajiyey faqaala aducafaau kuwii macnaha waxa weeye shicibkii ahaa oo la khaldi jiray baa waxay dhaheen liladiina kuwii waxay u dhaheen qoladii tabarta yareed oo atbaacda aheed oo caamada aheed oo la khaldi jiray qoladii hogaami jirtay oo baadilka ku hogaami jirtay waxay ku dhaheen liladiina qoladii istakbaruu iskibriyeen innaa annagu kunnaa waxaan ahayn lakum adinka tabacan taabican mid raaca war annagu adinkaan idin raaci jirnay oo aan idin daba joogna weligeen fahal antum ma tihidiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xaggeenna min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa min shayin shay ka mid a cadaabta ilaahay wax oon ka mid a ma naga badbaadi kartiin ilaa adinkaan idin daba joogi jirne markaasay hadleen dadkii waxa weeye ummadda lumi jiray qaaluu waxay dhaheen low hadaana allaahu ilaahay haddowna hanuunin lahaa lahadaynaakum adinkaan idin hanuunin lahayn haddii annagu aan fiicnaan lahayn oo annagu waxa weeye iimaan ku sugnaan lahayn annaguna iimaankaan idin bari lahayn laakiin annagaa lunsanayn waa adinkana wa idin luminay falaa yanfacuna alcataabu wala aljazacu maanta canaan iyo cabaad iyo waxa weeye waxaas waxba teri maayaan waxaas waxba nagu teri maayaanay dhahayaan baa la yidhi sawaa'un waxaa siman calaynaa dusheenna ajazicnaa argagaxnaya oo cabaadnaya oo qaylinaya am sabarnaa cadaabta ku sabarnaya waa isku mid dusheenna waa ku simanta dusheenna arrintaas waa ku siman tahay weeyaan maa lanaa nooma sugnaanin min maxiisin makaanu cararid bay leeyihiin baa la yidhi meel aan u cararno makaan loo leexdo oo cadaabta ilaahay maanta looga leexanayo ma jirto waxaa la yidhi ahlu naarku way isku imaanayaan markay isku yimaadiin bay waxay leeyihiin baa la yidhi war ahlu jannuhu waxay jannada ku gaareen waa ooyin iyo tadaruc iyo cabsi war hadda aan oyno oon khushuucno oo aan cadaabta ilaahay ka welwelno oo aan cabaadnay leeyihiin baa la yidhi war kaalaya aan isla oyne nabkii wanatadaracu ila allah markaabay ooyinayaan arrintaa markay arkaan inay waxba teli weydo ay leeyihiin baa la yidhi aan iska sabarno haddana waxaa la yidhi waa sabrayaan arrintaa haddana markay waxba teli weydo ay waxay odhanayaan baa la yidhi sawaa'un calaynaa ajazicnaa am sabarnaa maa lanaa min maxiisin dusheenna waxaa ku siman argagaxnaya cabaadnaya sabarnaya annagu meel aan uga leexanno cadaabta ilaah oon uga iilanno maanta nooma aysan sugnaanin waxaa la yidhi imaamu muqaatil baa wuxuu yidhi 500 oo sano ay ooyin iyo cabaad ku jirayaan markii ooyintaa waxba u tari weydo 500 oo sano ay haddana adkaysanayaan markay taasuna waxba tari weydo ay hadalkan dhahayaan baa la yidhi si kastoo tiraaba ahlu naarka waxa weeye hadalkaasa u dambeeya maalinta qiyaamo markii waxaa la yidhi haddana waxa weeye xukunkii la kala xugmiyo oo ahlu naarkii dadkii loogu talagalay naartii la geliyo ahlu jannihiina jannadii la geliyo ayaa waxaa la yidhi ahlu naarku waxay iskugu imaanayaan shaydaan baa faraqa lagu dhegayaa markaasi waxay odhanayaan war shaydaanow adaanna lumiyey bela ku qaaday sidaan badna yeeshay sow nama aadan dhihin naaru ma jirto xisaabu ma jirto bacsi ma jiro waxaba dhib ma jiraan anaa wax idinku teri doona sow nama aadan dhihi jirin shaydaanka waxaa la yidhi mimbar buu ku fadhiisanayaa kursiga uu ku fadhiisanayaa waa kursi naareed kursiga xataa uu ku fadhiisanayo waa kursi naara baa la yidhi ila isaga dhama naar ku jire kursi naareed buu ku fadhiisanayaa ahlu naarkiibuu u khudbaynayaa naartiibuu ka dhex khudbaynayaa khudbadii uu shaydaan akrinayey oo ahlu naarka u akrinayey ayuu ilaahay aayaddaa noogu sheegayaa aayadduna waa tan wa qaala ashaydaanu shaydaankii odagii ahaabaa wuxuu yidhi waxaa la yidhaha alkhudbatu albatra allatii yakhdubu biha ibliisu fii maxfali alashqiyaa'i fii jahannama acaadana allahu minha waa khudbada uu shaydaanku isku beri yeelayo oo ahlu naarka jahannamo uga dhex akriyo ayaa khudbadan la yidhaahdaa waana tan wa qaala ashaydaanu shaydaankiibaa wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru amarkii markii la xukumay oo ahlu jannihii jannadii loo diray oo ahlu naarkii naartii loo diray allah naga badbaadiye oo asagii faraqa lagu dhegay oo la yidhi maxaad noo lumiday
ayuu wuxuu odhanayaa ina allaha ilaahay baa wacadakum idin yaboohay wacda alxaqi yabooh run ah oo ilaahay idin yaboohay ilaahay ballantiisu run weeyi wa wacadtukum aniguna waan idin yaboohay oo waxaan idin idhi ma jiro naaru ma jirto dhimasha ma jirto xisaabu ma jirto waxbaan idin sheegay ballantii waa idinkaga baxay maanta waa ka baxay anigu taas fa akhlaftukum waa idin guub yeelay waa idinkaga baxay weeyaan wamaa kaana liya iima sugnaanin calaykum dushiina min suldaanin wax xujo iyo awood ah markii aan idin wadayey oon idin khaldayey maqora baa dhegta idinka saaray idinma qasbin gaalnimada idinkuma qasbin khamrada idinkuma qasbin soon la-aanta idinkuma qasbin salaad la-aanta idinkuma qasbin kaliya gacantan idin haatiyo waa idin fiijiyey waa isoo raacdeen idinkuna ilaa an dacawtukum in aan idin yeeray maahane wax kaleeto oo awooda anigu ma aana idinka lahayn waa un idin yeeray kali ah isoo raaca bis baan idin idhi fastajabtum lii waad i ajiibteen aniga hadalkaygii baad aqbasheen markii aan idin yeeray anigii baad i ajiibteen baadidii baad igu raacdeen waswaaskii baad yeesheen baadilkii aan idin qurxiyey ayaad aqbasheen maanta marka waxa weeye naar baan ku wada jirnaa adinkuna naar baad ku jirtiin anna naar baan ku jiraa falaa taluumuunii ha i eedaynina aniga ha i eedayninoo ha i dagaalinina oo aniga ha i canaananina waluumuu anfusakum naftiina eedeeya fa ina adanba danbukum dembigu waa jariimadii adinku aad gasheen anigu taydii baan la cabaadayaa oon la rafanaya oon la dhacdhacayaa oo naartii baan ku jiraa waanba ogahay inaanan khayr lahayn jamaaco iyo xisbi naarta ila galaan raadi jiray waana helay waa idin khalday waa igu raacdeen idinma qasbin naftiina maanta eedeeye maa ana anigu ma ihi buu shaydaan dhihi doonaa ahlu naarka saas buu leeyaha baa la yidhi bimusrikikum mid idin gargaari kara anigu ma ihi wamaa antum adinkuna ma tihidiin bimusrikiya mid aniga ii gargaari kara adinku iima gargaari kartiin laba qaawan isma qaaday dhahan soomaalidu laba qaawan isma qaado maa ana bimuqiisikum walaa antum bimuqiisiya min cadaab illah anigu ahlu naar baanah shaydaan baanah wax idinma qaban karo idinma gargaari karo adinkuna iima gargaari kartaan innii anigu kafartu waxaan ku gaaloobay oo aan maanta inkirayaa bimaa ashraktumuuni wixii aad ila wadaajideen shirkigii aad samaydeen waan diiday waa ka beri ahay beri baan ka ahay shaydaan beri baan kaa noqona ku dhihi doona waa cadowgaas ina adaalimiina bimaa ashraktumuuni min qablu hadda ka hor wixii aad ila wadaajideen adduunyada markii la joogay waa ka beri noqday ilaahay wuxuu leeyahay ina adaalimiina daalimiinta lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaasu aliimun ay mu'limun ee xanuujiyo weeyaan allah naga badbaadiyo ilaahay markuu ahlu naarkii nooga sheekeeyey ayaddan dersigeena ugu dambayda wuxuu nooga sheekaynayaa ahlu jannaha wanaagga ay helayan allah nagu dare wa udkhila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyey wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna la yimid dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo acmaasha waan wanaagsan la yimid waxaa la yidhi khudbadan shaydaanku markuu akrinayo waanu soo sheegnay yaqifu ibliis yowma alqiyaamati khadiiban fii jahannama calaa mimbarin min naar buu yihi sayidina xasanu bisri mimbar naareed oo jahanama dhexdeed inta istaago ou khudbada akri doona aan soo sheegnay yusmacuhu alkhalaa'iqa jamiican ama yasmacuhu alkhalaa'iqu jamiican wa udkhila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu ilaahiy rasuul rumeeyey wa camiluu asaalixaati acmaasha suusuubanna la yimid jannaatin jannooyin baa la geliyey jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda guryaha iyo saraha hoostooda waxaa maraya alanhaaru webiyaalkii kuwii biyaha kuwii khamrada kuwii malabka kuwii caanaha ba halkaa maraya khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda biidni rabbihim rabbigooda idankiisaa jannada ahlu jannaha lagu geliyey ahlu jannaha jannaa la geliyey idanka ilaahay baa lagu geliyey idanka ilaahay ayaa lagu geliyey ahlu jannaha waxaa la yidhi malaa'igtaa salaamaysa malaa'igtii baa u imaanaysa way salaamaysaa maca alijlaal waalikraam waa la weynaynayaa taxiyatuhum bariidintooda iyo salaamtoodu ayaga xataa isi salaamaya fiiha jannada dhexdeeda salaamun salaam weeyi taxiyada ay isku salaamaano waa salaam wax kaloo dhibana arki maayaan
wanaaggaas bay ku jirayaan. ilaahay markuu ka soo sheekeeyey dadka ashqiyada ah ahlu sucadaa ayuu noo sheegay si addoonku ugu dhexeeyo nicmada rabbi inuu raadiyo cadaabta ilaahayna uu ka baqo. khawf iyo rajaa mar walba waa inaanu u dhexaynaa ilaa qur'aanku ilaahay oo laga baqo iyo cadaabtiisa oo laga baqo iyo raxmaddiisa oo la rajeeyo ayuu nooga sheekaynaya. dersigeennii tafsiirka qur-aanka ee suuratu ibraahim halkaabuu caawa noogu joogaya. ilaahay ha nagu anfaco, cadaabta ilahay hanaga badbaadiyo, jannadiisa ilahay hanagu amaalmariyo, khaatumadan ilahay hanoo wanaajiyo, ilaahay cadaabtiisa iyo caradiisa allah naga koriyo, ramadaankana ilaahay hanaga aqbalo, ilaahay kuwa uu aqbalo soonkooda allah nagu daro, qiyaamkoodana uu aqbalo, leylada barakaysanna uu waafajiyo, kumayaalka la xoreyna allah nagu daro. dhibaatada iyo masaa'ibta ummadda dhiigooda qubanayo iyadoo ramadaan ay tahay weliba haddana oo saa'imiina oo habeen madow guryahoodii lagu baabi'inayo dadka ka dambeeya, dadka sababta u noqday, inta ummadda dhibaysa oo ku kor hertamaysa ayagoo kursi iyo adduunyo raadinaya oo dano iyo siyaasad ay leeyihiin ugu soo gambanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala si sariican ah ilaahay uga qabto dad wanaagsan oo ilaahay ka cabsanaya oo daacad ay ka tahay islaamnimada iyo magaca ay sheeganayaanna ilaahay maamulka ha ugu dhiibo. kuwa macnaha waxa weeye ictiqaadkoodu lumay, gaalada iyo inta ummadda dhibaysa, bidcooyinka, faajiriinta oo markaa dan adduunye maahane dan kaloo aakhira aan lahayna ummadda allah ka qabto. dersigeena caaw intaasan kusoo koobaynaa. wallahu waliyu tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.